بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبين wanaagsan daawadayaasheen aan ku saaxibnay channel kale xulka wararka online hadaano kale waxaad naga bartay inaad naga daawatan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya markana daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu weynaa ee Soomaaliya ee caawa channel kale xulka wararka online qodobada wararka aad ku daawan doontaan caawa waxa kamid ah madaxtooyada Soomaaliya oo beenisay in dawladdu marna aysan wada hadal ka gali doonin arrimaha la xiriira kiiska badda ra'iisul Soomaaliya kulamo loo kala kicin wali ka wada koonfurta magaalada Gaalkacyo oo halka uu kala kulmayo odayaasha waxgaradka magaaladaasi ku nool madaxweynaha Jubbaland oo booqday xeryaha ciidanka kana hadlayna qorshaha dagaal ee al-shabaab ka dhana dawladda Soomaaliya oo bilowday diiwaangelinta ciidanka ku sugan degmada Xudre ee gobolka Bakool odayaasha dhaqanka magaalada Cadaado oo ogolaaday inay la kulmaan ra'iisul Soomaaliya xiisadii ka dhalatay xilka qaadista gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo wali beledweyne ka taagan iyo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle oo maanta gaaray magaaladaasi kontaroolada ciidanka Muqdisho oo la soo ciidamo badan la soo dhigay wadooyinka jidcadayaasha qaarkii oo la sii xiray diiwaangelinta ciidanka degmada Ballanbale oo maanta la soo gabagabeeyay al-shabaab oo weerar culus ku qaaday saldhigga ciidanka Kenya ay ku leeyihiin afmadow maamulka degmada beledweyne oo ku hajabay in talaabo ay ka qaadin doonaan dhalinyarada amni xumada ka shaqeynaysa iyo dawladda Mareykanka hub iyo gaadiid dagaalba ka iibisay Taiwan markale fiid wanaagsan waa 9ka July 2018 u diyaar garooba wararka waa 2019 u diyaar garooba wararkaas oo dhan inaad ka dhageysataan idaacadda Salaam magaalada Muqdisho warar maalmihii dambe warbaahintuna ay aad u hadalhaysay oo soo baxay la xiriira in madaxweynaha Soomaaliya oo socdaal ku tagi doono wadankaasi Ethiopia kadibna uu la kulmi doono Uhuru Kenyatta labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan muranka la xiriira badda labada dawladood ee hadda maxkamadda caalamiga ICJ hortaala ayaa warkaas waxa si adag kaga hadashay madaxtooyada Soomaaliya been abuurna ku tilmaamtay sheegtan madaxtooyadu in marna aysan dhicin wax wada hadal ah dawladdu ay ka gasho arinta la xiriirta badda dawladda Soomaaliya waxa ay beenisay inay ka laabatay mowqifkeeda ku aadan muranka badda ee kala dhaxaysa dalkaasi Kenya iyadoo dhinaca kalena madaxtooyadu ay sheegtay in baaris lagu sameeyo doono cidda warkan ay faafisay saacadihii ugu dambeeyay ayaa waxa warbaahinta qeybaheeda kale ay baahiyeen in dawladda federaalka Soomaaliya ay wax ka bedeshay mowqifkeeda ku aadan muranka badda Cabdinuur Maxamed Axmed oo ah agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in aanay dawladda federaalka Soomaaliya ka naqan mowqifkeeda la xiriira kiiska horyaala maxkamadda ICJ ee dacwadda badda waxaan si cad u beeninaynaa wararka been abuurka ah ee lagu baahiyay qaar kamid ah warbaahinta ee lagu sheegayo inuu isbedelo mowqifka dawladda ee la xiriira qadiyada kiiska horyaala maxkamadda ICJ ayuu yiri agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada agaasimaha ayaa tilmaamay in xafiiska xirlaalinta qaranka arintan baaris dhab ku sameyn doono cidda ka dambeysay warkan been abuurka ah ee baahisay ama faafisay xirlaalaha guud qaranka ayuu sheegay in baaris ay ku sameyn doonaan warkan iyo ilaah laga soo xigtay iyo cidda keentay hase yeeshee warkan waxa uu ku soo aadayaa ama waxyaabaha arinta sababa ee ilaaha qaarkood waxay sheegayaan in dhowr arrimood ay warbaahintu ay u sababaysay watan koowaad in safiirka dawladda Mareykanka ee u fadhiya Soomaaliya toddobaad ka hor shaaca ka qaaday in labada dawladood ay ka wada hadli doonaan muranka u dhaxeeya labada dhinac ee badda Soomaaliya la xiriirta sidoo kalena isla wasiirka maaliyadda ee dalka Ethiopia ayaa magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa uu ku yimid booqasho Axmed Shide wuxuuna la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo warka qaarna aan la xaqiijin waxa ay sheegeen in madaxweynaha toddobaadkan uu ama bixi doono magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Ethiopia inkastoo madaxtooyada Soomaaliya ay beenisay in marna aysan wax wada hadal ah ama gorgortan laga gali doonin biyaha Soomaaliya ee Kenya markii hore ay ku soo xadgudubtay warka la xiriira ra'iisul iyo kulamada loo kala kicin ee koonfurta Gaalkacyo ka soconayeen eegi doona laakiin waxaan ka hormarinayaa madaxweynaha Jubbaland maanta waxa uu booqday xeryaha ciidanka dawladdu ay ku leeyihiin duleedka magaalada Kismaayo sidoo kale waxa uu la kulmay saraakiisha waxaana ka hadlay qorshaha dagaal ee al-shabaab ka dhana
axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland maanta waxa uu booqday deegaanka la yiraahdo Cabdalla Biroole ee gobolka Jubbada Hoose halkaas ay ku sugan yihiin ciidamo badan oo ka tirsan Jubbaland madaxweynaha ay wehelinayeen saraakiisha kala duwan ee ciidamada iyo xubno kale ayaa halkaas waxa uu khudbad u jeediyay ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedka Jubbaland asagoo ku amaanay dagaalka ay dadaalada ay ugu jiraan xoreynta dalka iyo sidii ay nabadda ama nabadgelyada deegaanka u adkay lahaayeen madaxweynaha ayaa sheegay in ammaanka ka jira magaalooyinka ugu waaweyn ee deegaanada Jubbaland ay sabab u yihiin ciidankan saldhigyada ay ku leeyihiin ciidamadan ay ku sugan deegaanada fogfog ee ka baxsan magaalada Kismaayo oo meelaha amniga laga sugo wuxuuna intaa ku daray in dhammaan shacabka reer Jubbaland ay ku jiifaan oo ayna isku haleynayaan amnigooda ciidanka oo ciidankii daraawiishta Jubbaland ee suug laha amniga ayuu yiri khudbad u jeedinaya ciidanka mar walba dadka magaalooyinka jooga niyada ayay idinku hayaan sida naftiina aad ugu horeysaan aadna ula dagaalamaysan cadowga ayuu raaciyay Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland ayaa bilihii la soo dhaafay waxa uu waday dowlad siyaasadeed xilli dhawaan la filayo in magaaladaas ay ka dhacdo doorasho lana tartami doono qudhiisa xubno badan oo musharaxiin ah Axmed Madoobe ayaa sameynaya dowlad siyaasadeed inkastoo cadaadis dhinacyo badan markan uu wajahayo iyo doorashada ka dhacaysa magaalada uu rabo in mar kale 4 sano kale soo socota in hoggaanka Jubbaland uu sii hayo markan aan eegno gaalkacyo waxgaradka odayaasha ku nool magaalada gaalkacyo waxa ay diidanayeen maanta oo dhan ba inay la kulmaan wafdiga ra'iisul Soomaaliya oo shalay uu gaaray koonfurta magaalada gaalkacyo sababaha ay u diideen la kulanka ra'iisul odayaasha waxa lagu micneeyay inay ka soo horjeedeenba ra'iisul oo markii hore tagay magaalooyin badan oo ka tirsan deegaanada Galmudug sidoo kale waxa ay sheegeen in ra'iisul ayagoon wax la tashi ah kala sameyn uu go'aan ku gaaray in magaalada Dhuusamareeb lagu qabto shirkadda booshiisiinta odayaasha qaarkood waxay sheegayaan in magaalada gaalkacyo koonfurteeda ay tahay meel xilli hore madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo cilaamiyay in magaalada ka dhici doona shirarka dib u heshiisiinta darteedna ayagu ay lahaayeen hase go'aan ay gaareen go'aan rasaaraha uu gaarin oo ku shaciyay in Dhuusamareeb lagu qabanayo hase wararkii ugu dambeeyay caawan Kenya halkaas waxa ay sheegeen in ugu dambeyn xubno badan oo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo wasiirro ka tirsan dowladda arinta ay ku baxeen ay odayaasha aqbaleen inay la kulmaan kulankana galabta uu bilowdo kulanka u dhaxeeya rasaaraha Soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka waana kulan albaabada u xiran waliina ka soconaya koonfurta gaalkacyo wax badan lagama oga ilaa hadda waxyaabaha ay soo wadaarsadeen odayaasha iyo waliba rasaaraha Soomaaliya waxaan naga xasuusina kulamada ka soconaya halkaas ee koonfurta gaalkacyo wax walba ku saabsan arrimahaas macluumaadyo badan iyo wareysi la xiriiraba barnaamijka dhacdooyinka caawa 9 barka soo galay inaad ku dhageyso doontaan qabaha kale wararkeena ka hareen waxa kamid ah dowladda Soomaaliya markii waxay bilaawday diiwaangelinta ciidanka ku sugan magaalada Xudur ee gobolka Bakool Xudur waxa tagay madaxweynaha Koonfur Galbeed sidoo kale waxa gaaray halkaas gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo helinayo madaxweynaha Koonfur Galbeed wasiirro ka tirsan dowladda oo ugu horeeyay wasiirka gaashaandhigga iyo mas'uuliyiin kale ee maanta waxay kormeer ku tageen xiriyaha ciidanka ay ku jiraan maleeshiyaadka hubeysan ee magaalada Xudur ee gobolka Bakool wafdigana tagay saakay xiriyahan waxa ay ka koobnaayeen saraakiisha iyo waliba xubnaha kale xirada ku sugan ayagoo booqday gudaanba xiriyaha ciidamada ee dowladda garan kuwa hubeysan oo dowladda aan u diiwaan gashaneen madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Galaan ayaa sheegay in xiradaas laga bilaabi doono diiwaangelinta ciidanka oo ciidamadan hubeysan dhammaan la diiwaangelin doono si ay u helaan xuquuqdooda mushaariga ay dowladda ay ku leeyihiin waxa uu ballan qaaday diiwaangelinta iyo waliba tirakoobka kadibna si joogto ah u heli doona xuquuqda isla markaana daryeel ay heli doonaan ciidanka gudoomiye Mursal iyo wafdiga oo hogaaminayo ayaa shalay u tagay Xudur gobolka Bakool waxaana halkaas ay ka dhaxligeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Xudur iyo xarumo kale oo magaaladaasi laga hirgelinayo wararkeena kalena waxa ku jira kontaroolada ciidanka Muqdisho ayaa markale aad ayaa loo soo badiyay waa la kordhiyay ciidamada sidoo kale wadooyin jidcadiyaasha caasimada kuwa hor leh ayaa dhagxaanta lagu jaray si loo ilaaliyo amniga caasimada oo marka dowladdu ay ku aamintay gudaan